gabar yar oo asagu dhalay oo bilooyin jirta ayuu si xun u ciqaabi jiray. Mararka qaar markay uyso uu qanjaruufanayay, markay kasii dartana wuxuuba geli jiray firiijka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Fartuun Cabdiraxmaan. YouTube channelka ay ka daawanaysid waa Fartuun History. Haddaad hore iila joogto waad ku mahadsan tahay. Thank you so much. Haddaad igu cusub tahay soo dhawow. YouTube channelka waa YouTube channelkaagii. Subscribe-ka ha iga iloobin. Koobkaaga shaaha soo qaado. Maanta waxaa noo haya qiso naxdinteeda iyo argagaxeeda wadata. Sanadkii 1995 Stephen Bell oo ahaa 20 sano jir wuxuu aaladda internetka ka bartay gabar yar oo lagu magacaabay Aliza oo da'deedana lagu qiyaasay in ay tahay 15 sano jir. Asaga wuxuu deganaa New York, ayadana waxay deganeed Texas. Labadoodu waxay isku afkarteen in ay is arkaan, balse isla xilligii wuxuu go'aansaday in uu New York ka soo duulo halkaas Texasna soo aado si uu gabadhan ula kulmo. saacado kadib markii labadoodii kulmeenna wuxuu ka dhaadhiciyay amaba u sheegay inay waalidiinteedii soo korsaday isaga soo tagto si ay asaga ula noolaato. waalidkeedii markay u sheegtana wayba ku gacan seereen, waxay dhaheen wax macquula ma ahan, waad yartaa waxaa jirta 15 sano. ayadii waxaas dhegba jalaq umaba isiinay, danteedii raaxatay waxayna aaday halkaas New York si ay ninkaasiite ay rabto ula noolaato. hal sano kadib markay 16 sano da'deedu ahayd waxay yeelatay uur. sanadkii 1998 January 29 waxaa u dhashtay ilmo yar ay ugu magac dareen Dynasty. balse aabihii wuxuu samayn jiray wax naxadin leh, argagax leh, qof yoonu uusan samayn karinin. ilmaha yarka wuxuu u ciqaabi jiray bilooyinka jiro si maskaxdaadu aysan qaadanaynin. sidaan wada ognaa ilmaha markay yar yihiin way ooyaan. ilmaha markuu ooyo asagoo dhibsanayo ooyinteeda intuu soo qaado ayuu qanjarufan jiray. markay zaa'id u ooysana wuxuu geli jiray firiijka. balse hooyadii maalin maalmaha kamida waxay aragtay ilmihii korkiisii oo guduud iyo meel madow noqday. hooyadii kuma fakirin aabaha ilmaha wuu dilayaa, laakiin waxay ku fakartay in ay waxaan yihiin allergic. maalin maalmaha kamida gabadheediina ay 8 bilood meelahaas ay soo gashay waxay aragtay aabihii oo gabadhii si xun u galayo, weliba intuu qabtay fridge dhex gelinayo, qanjarufana kadha kaga suray. hooyadii xilliga waxaa u bilowday naxdin iyo argagax, waxayna bilowday in ay gabadhan yarta si ay mustaqbal u hesho, nolol wanaagsanna ugu noolaato, in ay familo kale u raadiso si ay ugu adabti karayso, maadaama ayada ay yar tahay ay 17 sano jirto. xilligii waxay u sheegtay in aysan noloshan ciqaabta ku noolaan karinin. ilmaheedii yaraana way iskala soo carartay. waxay soo aaday magaalo yar oo lagu magacaabi jiray Connecticut. halkaasna waxay ku wareejisay famil iska ladnaay, wax caruurana aanan haysan gabadheedii. familkii waxay dhaheen gabadhaada inta ay nooshaa waxay ku noolaan doontaa nolol qurux badan, ha ka walwalin. way iska tagtay, waxay dib ugu noqotay halkaas iyo Texas iyo waalidiinteedii. sanado badan markay kasoo wareegtay sanadii 2006 wuxuu dib ula soo xiriiray hooyadii asagoo ka codsaday in ay labadooda haddana dib u midoobaan. wixii uu sameeyeyna aysan ahayn wax fiican, laakiin caruurnimo ay u geysay. hadda uu yahay qof weyn oo mas-uuliyad qaadi karo, uusan rabo in ay faraantii labadooda isku geliyaan, halkaan ay ku wada noolaadaan. ayadii way ka ogolaatay, labadoodii dib ayay u midoobeen, arooskoodii iyo faraantigeliskoodii halkaas ku dhigteen. kadib waxay dhaleen sanado kadib caruur 2 gabdhood oo yaryar. balse gabadhoodii yareed 2015 waxay ogaatay in aysan familkan dhalinin soo korsaday, ay ku haystaan adabti ahaan. waalidiintii markay u imaadana waxay ka codsatay, maadaama high schoolkeedii ay kasoo baxday, waxbarashadeedii kalena ay sii qorshaysatay in ay aado college, halkaasoo ay rabtay in ay ka noqoto gabar designarad ah. laakiin waxay tiri intaanan designerka iyo college-ka aanan aadin waxaan u baahanahay inaan waalidkii saxda ii dhalay isbarano, maadaama hadda qof weyn aan ahay. waalidiintii waxay siiyaan magacyadii waalidkii iyo meeshay deganaayeen. xilligii waxay bilowday Facebookii in ay ka raadiso. labadeedii waalidna way heshay, labadoodiba waxay u qortay qoraallo ayadoo u sheegtay inay gabadheedii tahay, weynaatay, rabtana inay isbartaan. waalidkii way ku farxeen labadoodii maadaama isla degan yihiin, caruur kalena haystaan. 2016 gabadhii waxay soo aaday New York si ay waalidiinteedii iyadii u kulmaan. halkaasna waalidkeedii waxay ku wada hadleen in ay ku wada noolaadaan, maadaama famil weyn oo ballaaran ay yihiin.
hooyada waxay ahayd hooyo shaqaysa aabaha aaba shaqeeya muusan ahaan jirin guri joogtu iska ahaa maba uusan jeclayn inuu shaqeeyo hooyada waxay ka shaqayn jirtay 2 shaqo aabihii wuxuu bilaabay in uu labisto 2016 qaabkii loo labisan jiray inuu u labisto timihii iska jaro garkii iska jaro kabayaasha la xiranayo hookiyaalada si fashion oo qurux badan u labisanayay gabadhii waxay ka heshay aabahan aaba qurux badanaaba i dhalabo anyways hooyada guriga way ka maqan tahay labadan qofood ayaa guriga isla joogi jiray aabe ilmihii cuntada u karinaya iyada waxay u fadhiisanaysaa meesha jikada halkaas u fadhiisan jirtay labadooda halkaas ku wada sheekaysan qaayadaha la aadi jiray labadoodii maray Farantiya noqdeen gabadhii aabaheed hooyadu way ku farxaday waxay tiri aabahan yaraanteedii wuxuu sii waayay farxad uu siin waayay buu rabaa weynaanta inuu siiyo way ku faraxsan tahay laakiinse maalmaha kamida shaqadii xilligeedii ka hor ay ka soo baxday gurigii markay imaaday waxay aragtay wax maskaxdeeda qaadan waay gabadhii iyo aabihii oo u dhaqmayo nin iyo naag isqaba camal sirrteediina uu jiifo hooyadii xilligii naxdin waxay go'aan ku gaartay in ay gurigiisa isaga tagto waraaq xuna ay wadatana tiri halka ii saxiix waan isaga tagayaa waqtigeena halkaas uu ku egyahay adiga intay sabixin gabadheedii yareed waxay ku tiri kan aaba kuma noqonayo aaba fiicanna ma ahan yaraantaadii ma ogtahay sababta aniga aan ku adabti gareeyay oo famil kale ku siiyay si aan nolol qurux badan oo mustaqbal u hesho ayaan dad kale ku siiyay laakiin ma rabin in aad xilligan inta u soo noqoto waxa aad sameynaysidna wax qaldan aabaha gabadha wuxuu ka dhaadhacsiyay amaba uu u sheegay in ay tahay step maadarteedii aysan ahayn hooyadeedii saxda ahayd asagana uusan ba ahaynba aabihii dhalay uu yahay walaalkeed ay siman yihiin walaalo yihiin buba gabadhii ku aqriye hooyadii xilligii way iskaga gurtay guri kale degtay gabadhii hooyada hadalkeeda maysan qaabanin barteedii iska sii joogtay danaheedii iska sii wata aabihii iska sii noolay 2017 gabadhii waxay yeelatay uur aabihii iyo gabadhiina waxay dhigteen xalfad Faranti gelisa oo waraaqa dukumentiyana ay ku soo samaysteen hooyadii markay soo maqashay gabadhii in ay uur leedahay aabihii ayadana dib ula soo xiriirtay waxay tiri adiga miyaad xanuunsan tahay ma nin waalan baa tahay ma fiyoobid gabadhan waa gabadhaadii maxaa kaa qaldan caafimaad ma qabtid orda dhakhtar aad wax caadi ma waxaad samaynaysaa wax sharci darro ah hooyadii waxay tagtay booliskii waxay diiwaan gelisay aabahan inuu aaba xanuunsan yahay ilmahana yaraantii si xun u geli jiray weynaanteediina markay u umaada gabadhoodii oo mustaqbalka lahayd laakiin booliskii waxay u arkeen wax yar oo iska iiziyo hooyada inay maseersantaa camal ay jelis dareemayso kaleente ribooday ka qoreen aabihii waa lasoo xiray 2 wiigoo xirnaa dibna waa loo sii daayay asagii gabadhiiba sila 2017 gabadhii waxay dhashay wiil yar ee ugu magac dartay Bennett islaantii ayada u ahayd marna sodohda u ahayd ninka qabay oo aabaha u ahaana dhashay marna aabaheed dhashay bay ilmihii yara u geysay markuu 7 bilood soo gaaray halkaasna waxay ku dhamaysay noloshoodii in aysan dib dambe isku arkin ayadana waxay iska aaday familkii soo adabti garayso intaasoo sano soo korinaya iska aaday iyo waxbarashadeedii iyo danaheedii 2018 Agoosto 11 ayuu dib u wacay asagoo u sheegay in ay soo noqoto guriga dib ugu soo noqoto balse way ka diiday waxay tiraahday aniga diyaar uma ihi taas danahaygan qaatay in aan soo noqdana ma doonayo noloshaasna baabkeeda waan soo xiray isla maalintaas wuxuu soo waday cunugiisii yaraa oo ayeedii la noolaa oo Bennett la dhahayay oo 7 bilood jiray intuu soo qaaday ayuu ilmihii yaraa ceejiyay naqaskana ku dhajiyay naftiina soo dhaafiyay isla 2018 Agoosto 12 wuxuu soo aaday Connecticut halkaas uu ku soo dilay gabadhii asaga uu dhalay marna ilmaha uu ka dhalay iyo familkii soo korsaday aabihii aabaha waxaa lagu magacaabi jiray Anthony Fosco gabadha uu adabti garaystana magaca uu ka bedelo wuxuu u bixiyay Keta Foske labadii halkaas uu ku soo dilay wuxuu wacay hooyadii dhashay wuxuu ku yiri waxaan dilay ilmihii yaraa 12 bisha 12 bisha oo maantana waxaan dilay gabadhii aniga aan dhalay marna ilmaha aan ka dhalay iyo ninkii soo korsadayba labadoodii halkaas aan ku soo dilay waxa uu wacdaa booliska u sheeg in aan 3 qofoodba u soo dhameeyay hooyadii oo qaraacansan waxay wacday booliskii waxay u sheegtay ilmo yar oo 7 bilood jira uu ka dhalay gabadhiisii in uu dilay guriga intuu ugu yimid watay banaankana ku dilay labadii qofood
gabadhii yareed oo ka dhalay ilmaha oo 20 sano jirka ahaydna inuu ayadana dilay aabihii 65 jirka ahaana oo gabadha soo korsadana inuu asagana dilay saddexdaas qofoodba inuu nafti dhaafiyay booliska raadin markay galeen oo ninkii la raadiyay asagiina wuxuu dib ugu soo noqday baabuurkiisu soo qaatay wuxuu dib ugu soo noqday New York halka markuu yimidba nafti is dhaafiyay adiga i daawanaya aabahan magaceed ugu waciliheed maxaan ugu yeeri lahayd aaba noocaas uu ahaa wixii falcelina qaybta hoose igu reeb insha Allah waxaan noo balana videogan videoga xiga